wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaan oo duceeyay Allah leedahay war khiyaaray waxa la yiri wan ma noo qalaysa arro wareedha dawladnimo ma taqaanaan aan barre dhageysta Allah ilaahay bar amba baro aan maqli jiray yaad u sheegaysaa dawladnimo miyaan lahayn inta dadka madax u noqoto daara iska jeexo dollarka guro oo waxa doonta dil waxa doontana daa yaan aqoonin Allah ilaahay waxaan maqli jiray ma doonayaan inaynu dawladahaano ayaan doonaynin wiidigeena durduran jiray kuwii tanahooda samaysan jiray war dawladnimo waxay tahay dadka aan u qeexe waa maamul diran oo dadweynuhu iska doorto danta guud hadagaayo shacabkana daryeelo xuduudaha dalkiisa daafacaya qarannimo mas'uulkii dadaalee daacad ugu shaqeeyay ku danaystayaashana dadku wuu jeeda allana waa dayaya dawladnimada idin baray ayaad leedahay miyaadan ogeyn inay dawladda xuduudaha ciidamo geysi araada anigu waxaan maqli jiray dawladnimo jir dawladnimo joog dawladnimo jir daacadii muhungowde war waa ku fahmay inaad xoog wadaniinta ka tirsan tahay warnimayo waxa la yiri adduunyada qorsha meel u yaal ama saqaynuune ayagaana la isku qatalaa qaladna waa muushe quud bayna nugu maamulaan weligii qayrkeene dambiyada qafiifka markiina la ku qaadayo waxa jira ragan loo qabsayn qaanti uu galay qaramada midoobana dambiga ugu qareemaane khibrad baana la isdheer yihiin qowlka iibsamee qidaday isbidayaan kuwii teena lagu qaybshay iyo qabarka uu moog yihiin dabinka loo qoolay qonofkiya sinsaaryada wale qoobka naga haysta iyo saan u qoor dhiibaniyo dibirta qaabaysan qalinkiya saxiixooda waad ku qaracmaysaane Addis Ababa waa lagu qashaakii qaraabsada qiyaaniya dil bay noo ahay tan iyo qaabiile waxba yaan xuduudda qafilan oo laga qaadi hangoolow gabadaaga waxaan ku xusuusnay nin qumbulada lala goobayo qaarsitaan ahaye Allah naxariista mugow Abdullah Raage lahaay war waxa la yiri dambiileen doqdaan qoon sharciga daba mareeya waxa kale la yiri dadkan haysan damaanad ambaan dawlad lahayn oo qaran daafaca waaya dambi duul kala geestaa dusha looga raraa misna loo daldalaa war waxa kale la yiri dayrtu ka saadaaliya cawl dabaylaha dusha sare intuu eega buu daalacdaa sare dadkuna daalalada iyo dayaxa mooradu dego iyaguna dargarabdaar lahoo loo digaa jira saadaasha waa lagu dayaasay dabeed noqon waxaan kala maqli jiray Soomaali weynay saadaashu waa guul saadaashu waa guul araada anigu waxaan maqli jiray yartu waxay la socotaa saaxiibkay lilaahi Soomaali weynay sidee baan wax yeelaa gooyo waxbaha calaacalin horaa waxaa loo yiri way iska xaal adduune warwar ma haysiine arrintu hees waa soo dhaaftay waa isku samirsiinaynaa ayaa naba woogna war nin sabraasad lehna dhagayso lima hadda goor wuxuu soo xaday xooladadow tuug cadeystow ahay inta toobadkeena dib u celiye wareedha amun karmeed daniq haysa aha war tuug waxa u daray kii qarax soo xaday war ummadana waxa ka dhaxeeya kuwa xadaya tuuga u xun xoolaha dadweynaha sawkii qayra yiri ha isku xadin wallahi hadan la qayni war horaa waxa loo yiri waxaan cunaha ku dhaafin iyo dhaashil baa jira war tuug waxa u daran kan qalbiga bini'aadanka xada ariyada dadka qalbiga xada waxa ka xun kuwa qabriga xada war Abdullah qabri qorisaan mooyee qori ka qaad ma leh warka naga dhageysta ninkii xoolaha soo xaday markuu inkiray ayaa waxa la yiri ka dhaaro kadibna waxa la soo dhigay kitaab wuxuuna yiri kutubadii Sheekh Hebel oo awrta lagu ridi jiraan ku dhaaran jiray waxna iga matali jirin ma afgaliskana u daahaya kadib kitaabkii ku dhaartay saacad kadib ayaa xumad lagu soo tuuray ma corona virus ay kadibna wuxuu yiri baa la yara waa soo karay marka nimayo hadda adduunka corona waa soo karay waxaana
iigu darneen intuu dadku dhacay oo aan aad uga carooday oo weliba ka xumaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde markii la igu yiri Corona isbitaal u jiifaa war ciyaaryahanka Ingiriiska ee Wayne Rooney wuxuu aad uga carooday ugana xumaaday coronavirus ku dhacay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson war macalinka Arsenal Arteta coronavirus waa ka soo kacay leeyahay war Arsenal inay coronavirus u dhamaadaan la rabay sababtoo ah qaraxayna u weerariyeen war Arsenal ma taqaanide waa koox Ingiriis war Arsenal saldhigeeda ugu weyn soo baalama wareegay golaha wasiirada Ingiriiska hadda yaa shir gudoominaya war ra'iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu yiri waan iskarantiilay shirka golaha wasiiradana online kana uga qayb galaya war adeerayaal Soomaalidu goormay inline iyo online samaysanaysaa iyadu Kalamaan ayaan waxaan qabaa inaan ducaysano madaxdeennana ugu ducayno ilaahay inuusan coronavirus ku ridin sababtoo ah isma karantiilayaan lamana karantiili karo nimaya habow karoonuhu adduunyada waa rogay nuur caddana hadda uu ku dhacay maba xishoo haaye anigu waxaan dhihi lahay karoone kama aymane kariim alow naga keexay karoone kama aymane kariim alow naga keexay amiin war ma haysaane isbitaal laga furayo magaalada Gaalkacyood waxa ka qayb galay senator Cabdi Qaybdiid iyo madaxweyne Xaaf haye karoona ma lagu daaweeyaa isbitaalka war Gaalkacyo dadka corona uga shakiyaan waa daariyaan waxay dhahaan qooda iyo xirada iyo iilka iyo aakhirka xilaha mu ku dalaaqayn inaad corona qabin warnimayo isbitaal Mexico ku yaala ayaa islaani mataano ku dhashay kadib labadii can way dhashay waxay kala bixisay corona iyo virus habartoor walle COVID-19 naqamaysa iyaduna hoga ilaan corona viruska dunida oo dhan ka cabanaysa naagaha Mexico dhala mar haddii hooyadii la helay daawadiina waa la helaya wareedhahay buuraad nagala degteenna dhageysta xafladaas oo senator Cabdi Qaybdiid ku soo dhaweeyay Xaaf wuxuu yiri hadda waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynihii hore Galmudug Xaafna wuxuu yiri senator wali xilkii ma wareejin hay ugu degdegin waada adduunkan hadda la jooga ninkan geelisay ilaashan inaan ninna u ilaalinayn nima hadda koor waxa la yiri magaca soo yiri looge asa la yiri looba jooge war madaxweyne Xaaf xafladda markuu ka hadlayo wuxuu yiri wadaadada Gaalkacyo jooga waxaan u sheegayaa siyaasadda inaysan faraha la gelin haddii kale sidii kuwii uu Samaraab joogay guuray doonaan hameen madow war kaalay Xaaf ma wuxuu Gaalkacyo ku arkay wadaadda Macallin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir week xuugu arki waaya Cali Beerayaba jooge wadaadadu baarka xeerta le waa cunaane ilaahay maad ka yaabtaan oo nasiisan hay u dhihi waayeen war wadaadada Beeraya cunaan dhusmareeyo ugu dambeysay walba bunkina warnimaya war ma haysaane xukuumadda Soomaaliland waxay amar ku bixisay dadka qurbaha ka imanaya soo dega in 14 cisho karantiila la geliyo waxa la yaab noqotay hotel dad shacab u leeyihiin oo ganacsi u furan markii yiraahdeen dadkan ku karantiilayna maamulka hotelka Skyna waa diiday arinta ka bacdina maamulka hotelka jeelka loo taxaabo oo walaalo hotelka ma coronavirus baa laga helay maxaa kaligi loo xukumay oo hotelka isbitaal ma loo bedelayne war dhaqankii madaxda kaligitaliska lagu yaqiin Soomahan in guri dad leeyahay la iska xukumo ya dawladdu dalka maamusha wixii ay dan guud u aragtana waa fuleexaad sheegaysiin war ma haysiin waxa hore loo yiri beeniraad mala garoonkii degmada Baraawe oo la yiri $4 milyan lagu dhisay markii roob u daay dadka qaaday la dagaalanka roobka walba looma dhisina diyaaradaha loo dhis iyagoon wili ku soo degmaa dad qaaday war lacagta lagu dhisay $4 milyan waaba ka badneed war lacagtaas garoonka laguma dhisine waa loogu magac daray oo dawladdu maxay noogu sheegi weysay waxa lacag markay heshay $4 milyan $4 milyan maahino war garoonka waxa burburiya lacag la'aan maahane markii hore beerad dad leeyahay xoog looga qaaday ahaaba leeyahay war xaq darra dumisay oo qayay tubtana xareeda ku dado xaq darra dumisay war ma haysan dawladda Soomaaliya markay duulumaadii caalamiga ah qaar celin weysay kuwii gudaha ahaa ayay joojisay war ma haysan isku leeyahay 15 May oo Muqdisho ku yaalo dawladda Masar gacanta ku haysay Masar khilaafkii wabiga Niil awgees ayay macallimiinteedii uga baxday Soomaaliyana waxay tiri nagala wareega waxa Ethiopian u heelana may la wareegto war ya Ethiopia arday wax noo bartay ciidan inoo keenta warnimayo Dictoraysa Mariyan Qaasim waxay tiri waxaan Soomaali soo joognaba ma maanta Ethiopia Masar ka dooranay dadkii waaweynaa ma joogaan maxay ula yaabaysaa waaba yaabay Masar maxay noo haysaa horta war Masar xakim hay'adda Soomaalida kama hayn war Carabi Soomaaliya ayada dayacday yay ku eedaysaa war madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri ilaahay
waxsan ka soo yeeri madaxweynahaanya dadka guryahooda ha joogaana ilaahayna ha baryaan si fiicana faraha iskaga dhaqano labada xubnood ee mucaaradku soo magacaabanay kumishinka doorashooyinka Soomaaliland golaha wakiiladu waa diideen inay ansixiyaan war Muuse soo magacaabo kuwa kale war mucaarad iyo muxaafid ba Soomaaliland nidaam ka jire dalkiina u shaqeeyade aryaada hadan marana tiina ma nagu kala wada aryaada maranaya aryaada iyo soo farxalo warnaga taga tawxiidka Allah idin ku dilay horta dawladdu ma waalan tahay